waan ku dhawahay sidiiqow waxa weeye 82 bishii lixaad 16 baan SNM ku biiray magaalada Baaldhe ayaan imi dabeedna toos baan uga baxay oo gaashamaan tagay muddo markii aan joogay hawlgalkii ugu horeeyay ayaanu qaadnay waxaanu ku qaadnay magaalada la yiraahdo Beer oo taraag dheer magaaladaasanu galay lix askari baanu ka soo kaxaynay oo aanu ka soo afduubnay maanta raggii qaar nool yahay salaad ciidan la yiraahdo baan imanka magar isla markii aad ku biirtay 1982 SNM ayaa dagaalkii ugu horeeyay isla sanadka isla markiiba halkaas aanu hawlgal ku qaadnay fadhiisin ciidan oo ku yaala Beer waanu ku soo guuleysanay hal gaari oo dawladda hoose leedahayna waxaanu ka soo qabsanay markaanu ka soo noqonay meesha leedahay Gumburka Libaax saasaanu ku guryanimi annagoo guushii xambaarsan beerka la wada dhigay habeenkii Burco markii hal sabin aanu ku ridnay la garan waayay wax laale wax duuyaale waxa meesha miray SNMna aan markaa laba aqoon ma maqal mooyaan halka yagii fadhiisanka yagii baan ku soo noqonay annagoo guushii xambaarsan hawlgalka yagii markiiba halkii baanu ka sii wadanay magaalada la yiraahdo Laan Mulaaxo iyo Xaaji Saalax baanu markiiba iyana hawlgal ku galay waanu ku soo guureysanay siiba Xaaji Saalax oo aanu raadiyay rakaalkii ciidanka booliska iyo nin maxbuusa iyo afar qori iyo rasaastoodii aanu halkaa ka soo qabanay isla markiiba markii aanu subaxii nimi hawlgal degdega oo maalinimo ayaanu baladhii ku qaadnay halkaa waxaanu ka soo qabanay laba askari oo boolisa iyo rakaalkii oo magaalada Baladhig iska rogadii aanu soo qabsanay iyo gaari station waageen oo nin la yiraahdo Ilaahay u naxariistay Cabdi Xakiim Somali oo raggii aad u qiimo badnaaya oo gudoomiyihii buu ahaan jiray meesha la yiraahdo gudoomiyihii maxkamadda Buusamareeb marka gaarigiisii baastooladiisii iyo qorigiisii bilayn gaarigiisii baan wadanay iska rogadii aan soo qabsanay waan wadanay si fiican baan u soo guuleysanay gaashamaan ku soo noqonay annagoo gool xambaarsan laba nin oo maxaabiisana sidina meesha waxay istiin la yiraahdo Samadu oo Corneyla maatadiisii gabadhiisii iyo caruurtiisii laanta guur baa lagu waayay dagaalkii 77 baa lagu qabtay ninaan quslin buu ahaa oo gaangistara oo aad iyo aad ma garanaysa markaan u nimaadnay ee hawlgalkaa soo fulinay oo yiraahdo yaa idinka dhintay ana cidna adeerow wajiba idinla shaqeeyo oran jiray waxaan oran jiray dadka iyaga gudaha SNMtii rasmiga ahayd gudaha jirta dadka iyaga nala shaqeeya sidaa daraadeed meeshaanu marayno iyo meeshaanu tegayno meel walba sahankeeda oo sugan badan la siiya sidaasaanu ku badbaadnaa hawlaha iyagii baan sidii ku sii wadanay ninkaasoo information buu diray uu leeyahay war kuwan hubna ma haystaan qoryo ma haystaan waa inaad hub degdega u keentaan Maxamed Kaahin ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu in qoryaa ilaa 400 oo qori diyaarad helicopter noogu keenay rag hub labaan noqonay ilaa 400 oo qori ciidamada afweyne ama talada afweyne labay ku ururtay in jabhad dusha nagaga keento oo ogaadiniya ama kilalka shanaad meesha la yiraahdo ay jabhad nin ka abuurto maya walba waa ka abuuray annaga nagaga keento nin iminka kilalka shanaad ka mid ah
oo aan bidhaantiisa arkoo la yidhahdo cali shucaac oo iminka nool iyo nin dhintay oo la odhan jiray magac kale leh oo la odhan jiray aamusane labadaa nin baa noo jabhadayn jiray oo xagga nagaga keeni jiray waxba badan nagama qaadin waanu jebinay jamhadda yani ma garanaysaa dee uu xaggaa ka soo caburiya xaggan aan ka caburinaya gudaha bay ahayd 83 baa soo galay dee rag baa gudaha ka shaqeynaya oo ilaahay u naxariistee 6 guduhu ka shaqeynayay ilaahay u naxariisto mujaahid allah u naxariistee howlgalkii Mandheera la diyaariyey maxamed baa diyaariyey maxamed kaahin baa diyaariyey 44 meelahaasaan u ahayn gaari ilaahay ha u naxariistee ina koosaar adeerkii leeyahay oo siiso afdugaadlaa baanu kaxaysanay cabdi boolidoon baa waday waa nool yahay maxaad ka hayn adeerkii ruma wey iska yaraaxan xanuunsanayaanka meel aan ciidan lagu ogeyn baanu ciidan kula kulannay waa go-o ciidan koonfur laga soo bedelay oo dhibooya ciidanka markaa waxaa wata ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed case odaynimo iyo dalyaqaanimo waxaa ula socda ninka la yidhaahda cabdixakiin sumuli howlgalka waxaa iskale ninka la yidhaahdo lixle maxamed xaashi lixle ilaahay ha u naxariisto isagiyo sumniba ilaa 3 iyo barkii meelahaasaan baakir sigaara buu u dhiibay nimankiina joojiyey yaa u dhiibay waxaa u dhiibayna maxaas cabdiraxmaan maxamed cas waa kan nala jooga ingiriiska waa ninka ingiriiska nala jooga waa bahalkii yara 10 ahaayee yaryaraado waa beltan markaasuu yihi waryaad sii daa marka askarigii baa idila hadlay askarigii baa nala hadlay markaasuu u dhiibay baakirka wal ma fiicantiin hagaa ku socotona dabeedna waxaanu dhihi halkan aanu ka soo qaadaynaa bahasha la yidhaahdo nuuradda gaadhiga dabadu waa furanta qaldawan baanu ku soo dhacnay waagaa soo dhawaaday halkaa gulucdaa leexsan ee togu ka soo biyo shubo ayaa toosh 3 goor 4 goor wac waa taymkii iyo ballankii iyo afgarashadii